dhegaystayaal soomaalidu waxay ku mahmahdaa erayna la kala odhan og eebbana la kala baryi og mahmahdaasi waxay mar walba i xusuusisaa allaha u naxariistee gabayaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdi iidaan faarax. cabdi iidaan wuxuu ahaa ragga aan diriqsane maansada tirinteeda hibada dhabta ah u lahaa. wuxuu dhashay 1924 1980kiina hargeysa ayuu ku iishay. wuxuu ka mid ahaa xilliyadii dambe tiirarkii xoogga lahaa ee maansada soomaalida cuskiinada u ahaa. cabdi iidaan xer cilmi weligii ma noqon, aqoonta diintana laguma cawri jirin. ha yeeshee waxaan u haynaa tixo maanse diineed lagu magacaabi karo oo kuu fasiri kara sababta aan maansayahanada ugala maago inaan caamo ku sheego amaba aan ku tiriyo. 1967kii ayaa cabdi la xiray. xukun dheer ayaa ka dul yeeray. 2 guug ku dhowaad kolkii uu qabiraa ayay kulmeen xabsigii uu ku jiray sarkaalkii taliyaha ka ahaa, kaasoo ku yidhi cabdow in lagu cafiyaa la arkaaye madaxweynaha dalka arti codsi ah u qoro. markaas baa waxa uu eebbe afkiisa ka keenay arti waxaan u qoranayaa ilaaha weyn ee awoodda kama dambaysta ahi ay isaga ku urursan tahay. gabay uu arti ku magacaabay oo rabbi bari ah ayuu bilaabay kolkii uu sarkaalkii ka tegey. gabay si aan laaxin lagu ogeyn uu ugu faahfaahiyey awoodaha magacyada iyo koosha uu eebba mudan yahay, isaga oo la moodo magacyadaa iyo sifooyinkaa wan wanaagsan inuu waayo badan baranayey guunayada diintana uu ugu xeraystay. wuxuu rabbi bari cabdi ku yidhi ilaaha loo baahan yahe baahaninow boqorkayow heedheh, ilaaha weligii baaqiga noqdayow boqorkayow heedheh, ilaahaan xaq lagu beenininow boqorkayow heedheh, ilaaha waaxidnimo loo bartayow boqorkayow heedheh, ilaahii dunida baaraxa khalqayow boqorkayow heedheh, ilaahii inuu burburin sheegayow boqorkayow heedheh, birtii culus allaha kala jabshow boqorkayow heedheh, ilaaha ciidanki badan yahayow boqorkayow heedheh, bini aadmi waa meel sokee boqorkayow heedheh, bismillaahi waa culustahee boqorkayow heedheh, ilaahii dartii lagu baryayow boqorkayow heedheh, ilaaha deeqsinimo loo baxshayow boqorkayow heedheh, kolka bacadka yoolkiyo la tago balalqiyaamaah nin kastoo badraanihi kolkuu biilna tari waayo ilaaha xukunka keligii bogtow boqorkayow heedheh, barjanno iyo cadaabtuu khalqiga ugu bushaareeyey, barba meeluu geeyaba korkuu kala boqoolsiiyey, ilaahii laba u kala bayriyeyow boqorkayow heedheh, bidhaantii jirtaba kii arkow boqorkayow heedheh, bad wax mara biriga wax jiriyo buura dabadooda in bog leh iyo in baabaca dhigtiyo baalka lagu duuro bushilno nool allaha quudiyow boqorkayow heedheh, biyo oday intuu iga khalqay iyo biliq yaroo dhiiga bilcan dumara uurkeed intuu igu barwaaqeeye barna aniga oon qabin isagaan igu bokaysiinin ilaahay nolosha igu soo baxshow boqorkayow heedheh, baabaca addoon baan dhigtaye boqorkayow heedheh, boqolkaaga magacee midla baan baaqa maqashiine ilaahow xadhigga sahal iiga bixi ku baryootamaya buu yidhi maalintaa. isbeddel xoogle ayaa dalkii ka dhacay. xukuumaddii cabdi u xiraa ee rayadka ahaa ayaa la afgembiyey. waxaa la soo gaaray 22 oktoobar 1969. maalintaa ayaa waxaa taladii la wareegay saraakiil xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanayd, kuwaasoo markii ay guulaysteen ooda ka qaaday maxaabiis fara badan oo ayaankiisa uu cabdi iidaan ku jiray. ha yeeshee 2 guug kadib ayaa boolisku cabdi iyo rag kale haddana soo qabqabtay. ammaanka qaranka dembi ciqaabeed ku lug leh ayaa lagu soo eedeeyey. dabadeedna maxkamad baa waxay ku xukuntay xadhig aan ka yarayn kii uu dhowaanta cafiska kaga soo baxay, waxaana la geeyey isla xabsigii uu ku jiri jiray. muddo hadduu halkaa ku sugnaa ayuu rag tara kama dhammaatee maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku tashaday inuu baxsado oo meesha iyo kareedka yaalba naftiisa ka samata bixiyo. goor aan indhuhu badnayn ayuu derbi dheer iska jaray, dhulka ayuu isbilqay, dabadeedna intuu kaca isyidhi ayuu hinqaday. mase lug baaba baf ah oo wuu jaban yahay. taah iyo alalad baaxiyey. wax yar kadibna askartiibaa isaga oo kuududa halkiisii ku soo dul joogsatay. isbitaal baa loola cararay.
inta la soo kabay baa kobtiisii lagu soo celiyey maalintaas bay saraakiishii xabsigu waxay guddoomiyeen cabdi in halis loo aqoonsado inkasta oo jabnaana silsilad adag sariirtiisa lagula xidho isaga oo xaaladda adag ku sugan ayaa maalintii dambe waxaa qolkii uu ku jiray ugu soo galay taliyihii jeelka oo ku yidhi cabdow waynu is-ogeyn oo waataad berigii hore ilaah bariday ee uu xabsiga kaa saaraye maantana maxaad odhan hadalkaas sarkaarka isaga oo la yaaban ayuu isla goobtii ku tiriyey tixran gaaban asii macnaha weyn leh wuxuu yidhi waryaa sarkaalow waxaan odhan mar wax bixiye bini aadmi baa lagu maleeyaaye adigaan khasnadahaagu maran mahade buuxaaye adiguu ku soo magan galaa ruux madluunihiyo kol haddii miciinow la yidhi meel kalaan jirin maqribkay cadceeddu u dhacdo iyo muuqashada waaga madowga iyo iftiinka isbeddela maaliya habeenka munasirul qur-aankow fadliga maxamed kaahiisa iyo magaca weynee carshiga yaan makaansadaaye haddana sacabadaydii madhnaa meeshii soo dhigaye maantana allahayowna furo kuu mataannahay alaataasna baryadiisii kuma hungoobin malihiisiina kuma khasaarin magaca weyn ee eebbe ee haddii lagu baryo aan lagu qadin ayuu cuskaday saa ilaah baa furtay oo xabsigii halhaleel uga saaray haddaba ma yaab bay leedahay haddii aan la yaabno sida qaarkood culimo iyo caamo intay dadka ugu qaybiyaan ay indha adeygooda maansayahanada caamada ugu daraan dhegaystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joogto